qodobka 19aad daryeelka qaybaha bulshada baylaxsan dawladdu waxay xil iska saaraysaa caafimaadka daryeelka xanaanada iyo waxbarashada hooyada dhallaanka naafada cid xanaanaysa aan lahayn iyo dadka aan xiskoodu dhammayn ee aan lahayn awood iyo cid kafaalo qaada qodobka 20aad shaqada farsamada daryeelka iyo badbaadinta shaqaalaha farqada koowaad shaqadu waa xaq uu leeyahay kuna waajib ah muwaadin kasta oo gudan kara sidaas darteed dawladdu waxay xil iska saaraysaa shaqo abuuris iyo tayeynta tababarada shaqaalaha faqrada labaad ka shaqaysiinta carruurta haweenka shaqaynta saacadaha habeenimo iyo goobaha shaqada fasaxyada iyo saacadaha shaqada waxaa qeexaya xeerka shaqada faqrada saddexaad shaqaaluhu waxay xaq u leeyihiin mushahar u dhigma hawsha ay qabtaan waxayna qof ahaan ama urur ahaanba gorgortan la geli karaan loo shaqeeyaha waxaana reeban shaqada oo la isku khasbo faqrada afraad dawladdu waxay ku dadaalaysaa inay ka dhex abuurto shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha is-afgarad iyo xaqsoorid iyadoo sidaas xeer ku soo saaraysa faqrada shanaad shaqaalaha dawladdu iyo xubnaha ciidamada qalabka sida waxay xaq u leeyihiin gunnada howlgabka iyo kaalmada bukaanka ama shilka iyo kaalmada qofka naafooba oo xeerka waafaqsan faqrada lixaad dawladdu waxay horumarinaysaa habka taakulaynta caymiska iyo badbaadinta shaqaalaha waxaanay xoojinaysaa hay-adaha ku shaqada leh qodobka 21aad hirgelinta iyo fasiraadda farqada koowaad waaxaha xeerdejinta fulinta iyo garsoorka ee qaranka iyo kuwa dawladaha hoose ee gobolada iyo degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland heer kasta ha ahaadeene waxa ay u hoggaansamayaan shuruudaha ku cad qodobada xubintan farqada labaad qodobada la xidhiidha xuquuqda iyo xorriyaadka asaasiga ah waxa loo fasirayaa si waafaqsan bayaanada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo xeerarka caalamiga ah ee dastuurka ku xusan qodobka 22aad xuquuqda siyaasadeed dhaqaale bulsho iyo xaqa doorashada farqada koowaad muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qayb galo howlaha siyaasadeed dhaqaale bulsho iyo hiddaha si waafaqsan xeerarka iyo dastuurka farqada labaad muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha xeerku tilmaamayo wuxuu xaq u leeyahay in la doorto waxna uu doorto qodobka 23aad xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo is-abaabulka farqada koowaad qof kasta oo muwaadin ah ama si xeerka waafaqsan dalka ku jooga waxa uu xor u yahay inuu dalka ka maro ama ka dego meel kasta oo uu doono iyo weliba inuu ka baxo ama ku soo laabto dalka marka uu doono farqada labaad arrimaha ku xusan farqada koowaad ee qodobkan waxa ka reeban meelaha ama waqtiyada xeerku ka reebo marideeda ama degitaankeeda farqada saddexaad muwaadiniintu waxay xor u yihiin inay isu habeeyaan ururo siyaasadeed cilmiyeed dhaqameed bulsheed xirfadeed ama kuwo shaqaale si waafaqsan xeerka farqada afraad waxaa reeban urur kasta oo leh ujeedooyin lid ku ah danaha ummadda ama qarsoodi ah ama leh qaab ciidan ama hubaysan amaba kuwa kale ee khilaafsan xeerka weji kasta ha lahaadeene qodobka 24aad xaqa nolosha nabadgelyeynta jirka xurmaynta magacsamida iyo dembiyada laga galo xuquuqda aadamiga farqada koowaad nafta aadamuhu waa deeq ilaahay waana qaali qof kastaana wuxuu xaq u leeyahay noloshiisa wuxuuna ku waayi karaa oo keliya marka maxkamad horteed uu ku caddaado dembi uu xeerku jideeyey in dil lagu mutaysan karo farqada labaad qofku wuxuu xaq u leeyahay in la nabadgeliyo jirhkiisa ciqaabta jirhka iyo waxyeello kasta oo loo geysto way reeban tahay farqada saddexaad qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in la xurmeeyo sharaftiisa sumcaddiisa iyo noloshiisa gaar ahaaneed farqada afraad dembiyada laga galo xuquuqda qofka sida xasuuqa dil maxkamad la'aan ah jirdilka iyo wixii la mid ah ma laha muddo dhaaf
wasaaradahaan waxa aanu diyaarinay application ay ku dhammaystiran yihiin dhammaan qodobadii dastuurka jamhuuriyadda Somaliland oo ah maqal muuqaal iyo codba. application-kan waxaad kala soo degi kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka labadaba adigoo ku qoraya dastuurka jamhuuriyadda Somaliland. Bulshada waa dantaade bara dastuurka.